daawade soo dhawow filimku wuxuu ka bilowmayaa nin ugaarsanaya bakayle si uu eygiisa u siiyo. Markii uu kayntii uu deganaa ku soo noqday wuxuu arkay eygiisa oo dhulka jiifa welibana dhiig badan uu ka muuqdo. Wuxuu damcay eygiisii inuu soo jeediyo laakiinse waxa dhammaan wejigiisii kaga wada duulay dhiiggii eyga. Kuwani waa koox dhalinyaro ah oo saaxiib ah kuwaasoo dhex maraya buuro. Safarkoodan waxay rabaan inay ku qaataan kuna soo dalxiisaan tuulo. Tani waa Mercy iyo Jeff oo gaariga wada. Karen, Bert iyo Paul gaariga xaggiisa dambe ay iyaguna fadhiyaan. Waxay ku leexdeen dukaan si ay waxay uga baahan yihiin oo dhan u soo iibsadaan safarkoodana u sii wataan. Laakiin dukaanka waxaa hor fadhiyay ilmo yar oo maask xiran. Paul ayaa isku dayay inuu ilmaha yar la kaftamo amase uu salaamo laakiinse wuu qaniinay. Aabihii ayaa soo baxay isla markaana si xun u canaantay. Muran yar ayaa dhex maray Jeff iyo ninka isagoo u sheegay inuu ilmaha yar khatar gelin karo dadka. Paul wuxuu iska meedhayaa dhiigga sidoo kalena asxaabtiisii. Ninkani wuxuu ogeysiinayaa inuu xanuun ka jiro tuulada. Wuxuu uga digayaa inay is ilaaliyaan oo iska ilaaliyaan diseaskaas magaalada ku jira. Sidoo kalena wuxuu u sheegay inay dad badan ku dhinteen. Runtii arrinkaasi la yaab ayuu ku noqday. Bert ayaa dukaanka ka soo baxay isagoo ninkii dukaanka lahaa uu weydiinay alaabtii uu ka soo xaday. Raaligelin ayuu bixiyay isla markiina iga baxa ayuu ku yidhi meeshana ka taga. Isla markiiba way baxeen. Karen gargaar degdeg ah ay u sameynaysaa Paul iyadoo gacanta wax xidhaysa. Kadib waxay yimaadeen guri meel cidlo ah ku ag yaala qofna ka ag dhaweyn. Waxay waayeen isgaarsiintii internetkuna wuu u shaqayn waayey. Bert ayaa banaanka u soo baxay isagoo welibana baaskoolad ka soo helay guriga soona qaatay. Wuxuu rabaa inuu tijaabiyo sidai u shaqaynayso waayo markasta wuxuu ku ciyaari jiray geemka. Saaxiibkii ayuu xabadda ku dhufan gaadhay si kedisa. Iminkana wuxuu isku dayay inuu dab shito laakiin si kedisa ayuu dabkii u weynaaday. Wuxuu rabaa weli tijaabinta baaskooladan inuu sii wato. Tani waa Karen waxay rabtaa inay sawiro iskaga qaado jawigan quruxda badan. Waxaa u yimid Paul. Bert wuxuu tegay kaynta isagoo baaskooladan tijaabinaya. Wuxuu si kedisa ugu dhuftay xabaddii nin. Runtii wuu ka naxay laakiinse ninkani wuxuuba ahaa mid cudur qaba oo uu xanuunsanayay isla markiiba wuu cararay isagoo u qaadan waayey. Wuxuu sameeyey gurigii ayuu yimid isagoo aan cidna la hadal ayuu gurigii hore u galay. Habeennimadkii markii la gaadhay kooxdii saaxiibada ahaa waxay shiteen dab iyagoo welibana sheekooyin wadaagaya. Nin ayna garanayn ayaa si kedisa ugu yimid wuxuuna u sheegay dabkan ay shiteen inuu meel fog ka soo arkay. Magaciisana waa Graham. Eygiisana waxaa la yidhahdaa Dr. Mambo. Wuxuu u soo bandhigay daroogo laakiinse way ka diideen. Runtii ninkaas dhaqankiisa kamay helin wayna la yaabeen. Guriga ay iska yimaadeen iyagoo iska qosqoslaya sheekooyin wadaagaya. Albaabka ayaa si kedisa loogu soo qaraacay. Jeff markuu albaabka furay wuxuu la kulmay nin dhiig badan ka da'ay sidoo kalena xanuunsanay ambase cudur qaba. Bert markuu arkay wuu naxay waana ninkii uu xabadda ku soo dhuftay. Wuxuu ka dalbanayay in la caawiyo. Bert ayaa albaabkii ku xidhay ninka wuxuuna uga digay asxaabtiisa inay caawiyaan ninkaas wuxuuna u sheegay inuu xanuunsanayo. Waxay arkeen isagoo gaadhigoodii galay si ay gaadhiga uga soo saaraan waxay banjiriyeen taayirkii gaadhiga. Paul ayaa isaguna muraayadii gaadhiga jabiyey. Markuu soo baxay ninkii Mercy ayaa iyaduna gaas ninkii ku shubtay wuuna gubtay. Sidoo kalena Jeff ayaa dabkii ku shiday ninka. Gebi ahaantiisba wuu wada gubtay isagoo xanuun badan dareemaya ayuu cararay isagoo qaylinaya welibana wuxuuna ku dhawaaqayay i caawiya. Runtii kooxdii saaxiibada ahayd aad bay u cabsanayaan iyaga oo warwarsan ayuu waxay ka fikirayeen waxay sameyn lahaayeen. Dalxiiskoodii wuxuu noqday mid warwar badan geliyay cabsina ku abuuray dhammaantoodba. Mercy ayaa soo jeedisay inay gaadhiga hagaajiyaan askartana u sheegaan. Subaxii markay soo tooseen waxaa u taalay shaqo badan gaadhigana waxaa ku wada yaalay dhiiggii ninka. Mercy ayaa tiri anigu caawinaad ayaan doonayaa welibana si gaadhiga inoo hagaajino keligeed ayayna baxday. Karen iyadu way naxsantay wayna khalkhalsantay dharkeedii oo dhanna way wada urursatay. Paul ayaa u yimid isagoo maskaxda u dejinaya biyana wuu u keenay cabsidii badnaydna way ka yaraatay. Sidoo kalena waxaa israacay Jeff iyo Bert waxay deydayayaan caawinaad si gaadhigooda u hagaajiyaan. Guri ayay galeen iyagoo ka naxay dhiigga badane meesha ku daadsan waxayna la kulmeen gabadh doofaar qalanaysa. Waxay usoo bandhigeen una sheegeen inay caawimaad rabaan gaadhigoodana ay rabaan in loo hagaajiyo. Kadib way soo dhaweysay iyadoo ku tiri welibana guriga hore u soo gala. Way iska sheekaysanayeen ninkii waalnaayay xalay ay la kulmeen. Kadib waxay maqashay hadalkoodii. Gacmaheeda waxaa ka muuqday dhiig badan markii biyaha u keentay. Waxay weydiisay ninkaas soo weeraray cidda uu ahaa iyadoo farta ku fiiqaysa sawirkaas. Way naxeen waxayna arkeen ninkaas inuu ninkii xalay yahay. Been ay u sheegeen horena way ka baxeen iyagoo ku yidhi ninkaas muu ahayn. Iminkana waxa soo noqotay Mercy wayna ka naxday Jeff iyo Bert. Si kedisa gurigooda hortiisa waxaa soo istaagay gaadhi booliis. Paul ayaa daaqada ka soo arkay. Xabad ay isla markiiba ku qabatay iyadoo su'aalo weydiinaysa. Waxay weydiisay waxa gaadhiga ku dhacay. Wuxuu ku qanciyay shil ayaa xalay tala dhacay ninna wuuna soo weeraray. Wuxuuna ka dalbaday caawinaad askariyada. Karen ayaa soo baxday dibna way isaga noqotay isla markiiba. Weli askariyadan shaki
shaki yar ayaa ku jira. Paul markii ay su'aalo badan weydiisay ugu dambeyn way iska tagtay. Gaadhigan waxa ku yaala dhiig badan, waxayna isku dayeen dhammaanba inay ka nadiifiyaan oo maydhaan. Waxay qorsheynayaan sidii ay meeshan uga tagi lahaayeen. Isla markiiba si kedisa waxay ku arkeen habeenkii eygii uu watay ninku Mercy ayaa xabad si kedisa ugu dhufatay wuuna baxsaday. Bert ayaa la yaabay wuxuuna weydiiyay shiishka qofka baray. Imanka waxay qorsheynayaan talaabooyinka markaa xiga waxay samayn lahaayeen. Jeff ayaa soo jeediyay inay si degdeg meeshan uga baxaan iskana tagaan. Karen waxay dareemaysaa xanuun fara badan, kooxdiina way ka soo dhex baxday si ay u jiifsato. Bert wuxuu ku mashquulsan yahay taayirka gaadhiga siduu u hagaajin lahaa. Sidoo kalena Jeff ayaa ilaalinaya isagoo hareeraha eegaya. Waxayna arkeen mar labaad isla eygii. Isla markiiba wuxuu ku faray xabada eygii. Paul wuxuu si kedisa gacantiisa uga dareemay dhiig fara badan. Uuna naxay wuxuu arkay lugaha Karen oo dhiig fara badani ku yaalo. Isla markiiba wuxuu ogaaday Karen inuu ku dhacay cudurkii maqaarka. Wuu qaylinayay isagoo dhammaanba isugu yeedhay asxaabtiisa. Wayna naxeen gudahana hore ayay u galeen. Waxay arkeen Karen oo dhiig fara badani ka da'ayo. Mercy way cabsatay iyadoo ka naxsan arrinkaas. Bert ayaa soo galay sidoo kalena wuu arkay. Wuxuu ka baqay dhammaantood inuu cudurkaasi ku faafo. Wuxuuna isla markiiba ku yiri ka baxa qolka. wuxuuna uga digay cudurkani inaanu saameyn iyagana. Laakiin Karen way oyday waxayna ku tiri hayga tigina fadlan waan xanuunsanaya. Go'aan waxay ku gaareen inay qolka dusha kaga xidhaan. Bert ayaa u sheegaya inayna ka tegaynin gaadhigiina uu weli xun yahay. Haddana waxay ka soo saareen qolkii Karen waxayna geeyeen guriga banaankiisa. Iyagoo u qaaday furaashii waxay ku seexataba. Waxay ka baqanayaan inuu cudurkan iyagana saameeyo. Sidoo kale Bert ayaa u ballan qaadaya Karen inuu dusha ka waardiyeynayo. Paul wuxuu go'aansaday inuu caawinaad daydayo waqtigan isagoo kaymaha dhex maraya wuxuuna ka cabsanaya sidoo kalena aygi wuxuu aad ugu rajayn yahay inuu helo qof caawiyo Karen. Kaynta uu maraya waa meel cabsi badan oo madow sidoo kalena wuxuu maqlay codkii ayga oo qaylinaya wuuna raadiyay laakiin waxba uu arki waayay. Weli codkan uu maqlaya waa mid runtii aad iyo aad u cabsi geliyay. Run ahaantii Mercy waxay u keentay cunto laakiin Karen waxay ku codsatay inay albaabka ka xidho iskana baxdo wajigeedana waxaa ka muuqday murugo fara badan. Karen waxay ka baqanaysaa inuu cudurkan saameeyo asxaabteeda. Paul ayaa wuxuu la kulmay gaadhigaas wuxuu daaqada kaga ifinayay toosh inay idinku jirto iyo in kale. Gabadh ayaa xagga dambe kaga timay iyadoo u hanjabayso kule maxaad gaadhigayga ka rabtaa. Xabad ay rabtay inay ku dhufato isaguna wuu naxsan yahay. Wuxuu u sheegay inaanu waxbaba ka doonaynin laakiinse uu rabo caawinaad. Waxay ku yiraahdeen meeshaad ka timi ku noqo ambase waan ku dilaynaa. Isaguna wuu soo cararay. Wuxuu u sheegay inaanu waxbaba soo helin. Sidoo kale Karen ayaa meesha lagu xidhay sawir iskaga qaadaysay. Mercy waxay weydiisay inuu jiro qof casho u baahan laakiin dhammaantoodba may rabin inay casheeyaan. Mid kastaaba wuu diiday. Sidoo kalena Paul oo xanaaqsan ayaa wuxuu u sheegay inay keli wax u cunayaan kelina u seexanayaan laakiinse si wada jir ah ay isku caawinayaan meelna ayna kala qabanaynin. Fikirkaasi wuxuu noqday mid ay isku wada raaceen. Aygii ayaa mar labaad ku soo laabtay gurigii. Aygini maaha mid tegiya waayo wuxuu qabaa cudur wuxuuna rabaa qof uu cuno. Waxay dareemeen inuu aygii banaanka joogo. Daaqada ayay ka arkeen isla markiiba way waayeen aygii banaankana way u soo baxeen iyagoo raadinaya. Ilaa hadda waxay diidayeen aygii laakiinse weli may helin. Subaxnimadkii markii la gaadhay waxay go'aansadeen inay soo booqdaan ambase ay soo eegaan. Karen aad ayay u dhigbaxday dhammaanba dhiigeeduna dhulka ayuu yaalay. Bert wuxuu tijaabinayay gaadhiga wuuna hagaagay. Karen ayay soo kiciyeen si ay gaadhiga u geliyaan. Bert wuu qufacay dhiig ayaana ka yimid isagoo xanuun dareemaya. Inna umuu sheeginay gaadhiga ayuu galay. Karen dhiig badan ayuu qufacday. Jeff ayuu wejiga kaga daatay. Wuu xanaaqay welibana isagoo la sidee gaadhiga loo saaraya. Gabadhan xanuunsanaysa. Kadib Bert ayaa keligii baxay isagoo la aniga caawimaad soo raadinaya. Jeff ayaa guriga ku soo noqday isagoo weli ka wasuusaya dhiigii Karen. Jeff sidoo kale wuxuu go'aansaday inuu keligii meel gaar ah iska tago ma rabo inuu dhex joogo asxaabtiisa waayo wuxuu ku yiri markasta Karen ayaad u dhowdihin dhammaantiina waad xanuunsanaysaan iyadana kama fogaanaysaan. Paul wuxuu ururiyay dhammaanba dharkii dhiiga lahaa guriga yaalay kadibna badda ayuu ku tuuray. Wuxuu iska ilaalinaya inuu cudurkan isagana ku faafo. Mercy iyadoo niyad jabsan ayaa waxay tiri dhammaantiin halkan waynu ku dhimanaynaa hal qof inagama soo harayo cudurkan maqaarka ayaana ina wada dilaya. Bert dib wuxuu ugu soo laabtay dukaankii markii ugu horeysay ay tageen inanka yarna uu joogay. Wiilkii yara ayaa soo kacay oo Bert ayuu gacanta ka qaniinay. Wiilka yar aabihi ayaa Bert xoog u canaantay sababtoo ah wuxuu ku yiri wada xanuunsanaysaa markaasuu inankayga yaraana ku qaniinay. Nin gudaha ku jira ayuu ka codsaday inuu xabadiisa u soo saaro waana u soo dhiibay. Wuxuu rabay inuu toogto laakiinse ninkii kale ayaa ka joojiyay sababtoo ah wuxuu yiri ninkan iska daa aynu dabagalno si aynu dhammaantood u soo wada dilno cudurkan intaanu faafin. Waxay go'aansadeen inay dabagalaan Bert. Gaari ayay ku eriyadeen Bert iyagoo welibana xagga dambe gaadhiga
kaga dhufanaya xawaare sarena way ku wadaan. Paul ayaa wuxuu u soo galay Mercy oo dhabarkeedu wada dhiig yahay wuxuuna u sheegay labadooda kaliya inay baxayaan ay diyaar garowdo laakiinse way ka diiday oo way aqbali weyday. weli nimankii waxay eryanayaan Bert si ay u dilaan laakiinse isaguna wuu ka degay gaadhigii oo kaynta ayuu ku cararay. wuxuu rabay inuu kaga dhuunto dhankaas iyo kaynta. Mercy iyada laftirkeeda hadda waxay dareemaysaa xanuun fara badan oo dhanka maqaarka ah. Mercy waxay ogaatay inay xanuunsanayso oo maqaarkeedu midhmidh u dhilmaya isagoo dhulka ku daadanaya. Paul ayaa wuxuu diidiyay saaxiibkii Jeff meesha uu ku dhuuntay laakiinse badda waxa kaga soo hoos baxay ninkii habeenkii ay gubayeen. wuxuu rabay inuu dilo laakiinse wuu isbadbaadiyey oo isaga ayaa dilay. wuxuu ogaaday inay dhibaatadu tahay webiga isagoo qaylinaya ayuu yidhi ha cabina biyaha. Bert wuxuu khiyaameynayay raggii raadinayay oo dhiig ayuu u marmariyey geedka si ay u moodaan inuu dhankaas kala maray laakiin way ku fahmeen oo way soo dabagaleen wadadii uu maray. Mercy ayaa banaanka u soo baxday iyadoo ooyeyso qaylinaysa dhiig fara badanna ka da'ayo diirkeeduna midmid dhulka ugu dhacayo. waxaa arkay eygii oo ku qayliyey islamarkaana Mercy cunay. habeen ayay noqotay oo Paul ayaa soo laabtay dhulkana wuxuu ku arkay dhammaanba dhiiggii Mercy oo dhulka ku daadsan iyo iyada oo dhimatay. qaylo ayuu ka maqlay xagga dambe eygii oo cunaya haddana Karen kadib xabad ayuu qaatay uuna dilay eygii. Karen oo aad u xanuunsanaysa ayaa ka codsatay inuu dilo oo waxay lahayd idil waan ku barayaa hal mar naftay dhaafi laakiinse wuu isdiidsiiyey oo wuu awoodi kari waayey. ugu dambeyn majarafad ayuu afka kaga kala jeexay laakiinse weli way dhiman weyday oo waxay haddana ku tiri idil. iminkana gaas ayuu ku shubay dhammaanteedba. gaastaas waxay ku dareemaysaa xanuun fara badan iyadoo qaylinaysa ayuu gubay wayna dhimatay sidoo kalena Karen. Paul aad ayuu uga murugaysay arrinka. si kasta wuxuu ku arkay Bert oo dhulka jiifa wuxuuna u sheegay inay rabaan inay nimankii dilaan isagoo weli hadalka u wada ayay xabad madax kaga dhufteen Bert wuuna dhintay. Paul ayay ku qosleen waxayna ku yiraahdeen waanu ku badbaadinay isaguna wuxuu ku dhaw mahadsantiin markaasoo xabadii ku furay saddexdoodiiba way dhinteen. intaas kadib Paul wuxuu ka haystay gaari isagoo raba inuu meesha iskaga tago. balastarkii gacanta kaga xirnaa ayuu iska furay wuxuuna ogaaday isaguna inuu cudurkii qaaday oo naxdintii ayuu geed jiiray. gaarigii ayuu ka soo degay isagoo ooyaya gaarigiina wuu qarxay. wuxuu ku soo baxay askariyadii maalinkaas uu ka codsanayay inay caawiso iyo laba qof oo kale isagoo qaylinaya ayuu canaantu ku yidhi waxaasoo dhan adiga daraadda ayay ku dhaceen. askariyadii ayaa lala soo hadlay iyadoo lagu amray inay disho qof kasta uga shakido inuu cudurkan qabo. hadalkaasna waxaa maqlayay Paul wuxuuna ku yidhi idil diyaar ayaanu ahay inay idishid. kadib waxay ku tiri kuma dilayo orodo iska tag wadadaasna marlaami ayaa ku taala. wuu iska tegay isagoo welibana laamidii ay u sheegtay deydaya laakiin been ayay u sheegtay isaguna wuu iska ooyey. waxaa la joogaa waqtigii ugu munaasibka ahayd inaad ajar shaqaysato sadaqana aad baxsato. ka farxi walaalada ay abaartu saamaysay biyo la-aantuna ay hayso. nebiga ayaa la weydiiyey sallallahu calayhi wasallam goorma ugu wanaagsan qofku inuu sadaqo baxsado. wuxuu yidhi waa marka uu qofka bini'aadamku caafimaad qabo. maanta waad caafimaad qabtaa fadlan walaalada ka farxi ajarna shaqayso. shabcaan ayaa lagu jiraa sidoo kalena waxaa soo gelisa bishii barakeysneed ee Ramadaan. ku caawi walaalada ay abaartu hayso waxaad awoodi kartid xitaa $1 ha ugu yaraatee. sidoo kalena haddii aanad awoodeyninna waxaad samayn karaysaa ood ku caawin karaysaa fadlan inaad muuqaalka nala sheer garayso walaal si uu dad badan u gaadho. maalinimadkii waxaa soo baxay Jeff oo rabay inuu asxaabtiisii dib ugu soo laabto laakiinse wuxuu la kulmay Karen iyo Mercy iyo Bert dhammaantoodba inay dhinteen. gacantiisa ayuu eegay wuxuuna arkay inuu isaguna cudurkii qabo. meel dheer ayaa waxa ka soo toogatay askariyadii isaguna wuu dhintay. sidoo kalena kaynta dhexdiisa ayay ku soo dishay Paul oo isaguna wuu dhintay. daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan fadlan ha iska bixin marka hore muuqaalkan like saar sidoo kalena asxaabtaada la wadaag adigoo u sheer garaynaya waad mahadsan tahay.